بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي baa mahadle subxaana wa tacaala muslimka ina ka dhigay, caafimaadka ina siiyey, caqliga ina siiyey, islaamka ina ka dhigay, allaha waaxidka ah ee keligiisa ee cirka dhulka abuuray. ammaan dhammaanteed allaha iskale subxaana wa tacaala ayaa maaragtay mahadoo dhan leh. ilaah waxaan weydiisanaynaa walaalayaal, marka koowaad waxaan ka soo hadlayaa baytullaahi alxaraam, maka ayaan ka soo hadlaya. walaalayaal, hadalkaasna waxaa weeye marka koowaad beydka xurmada leh, waa maadaama aan joogo waxaan isiri ducadu halkan dee way ku sii aqbal badan tahay sida salaadaha iyo cibaadada kaleetaba ugu sii fadli badan yihiin. sidoo kalena waxaan jeclaystay inaa idinkuna aamiin tidhaahdaan meeshuu gaaraba ayaan jeclaystay. marka koowaad, marka walaalayaal, intaas xajka aan joogay, horta dad badan baa maaragtay intaan joogay maka, waxaa dad badan baa maaragtay oo muslimiina oo aan isnaqaan ayaa duco soo codsaday oo beydka xurmada leh maadaama aan joogno inaan u soo ducayno dhammaantii haddaan soomaalinahana soo faray. waxaan leenahay marka dadka walaalayaal, idinkuna aamiin loo dhahaya. dadka in badan oo ka midihi waxay codsanayaan xanuun iyaga haya ama dadkooda haya ilaahay inuu ka caafiyo oo ilaahay caafimaad degdeg ka siiyo. waxaan leenahay allahuma raba annaas adhib ilba'sa washfihim wa anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yugaadiru saqama. ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo, caafimaad degdegana allah siiyo dadka ka xanuunsanaya ayagaba saasaan ilaahay u weydiinana. sidoo kale dad badan walaale waxay ka soo cawdeen ayaguna oo ilaahay inaan u weydiina ay ka soo codsadeen, khaasatan dayn fara badan oo lagu leeyahay oo aanay tabar u heli karin oo aysan bixin karin hadda. sidaa darteed ilaahay inaan u weydiino, daynta waa culustahay, waa ogtihiin qofka wax lagu leeyahay waxna aan heli karin welina wax u baahan waad garan karaysaan, waa culus tahay. allahuma raba annaas, ilaah waxaan leenahay subxaana wa tacaala allahuma yaa rabbana faqdi canhum addayn. allahuma yaa rabbana, annagoo dhan ilaah waxaan leenahay allahuma yaa rabbana faqdi cana addayn. rabbana yaa rabbana, allahuma yaa rabbana faaqnina min alfaqri waqdi cana addayn. allahuma rabbana faaqnina min alfaqri waqdi cana addayn. توفنا في عبادك وجهاد في سبيلك. إلهي وحان لنا إله وذا قدر الرحمن أذا غني أو البهلك له بريانا أذا مضن إله بيتك أجنا واتشوقنا إلهي دمان دينت دتك الأولى دمان تودي أنت خلوا يجوا سوى صنع دينت الأولى وأن هلكرين إلهي دينتاس إلهي وكفر دان وإلهي وحكى ونكبضنا إله سيه ويكون ولا أذان دوني أنت دوني ذا شوقان ويكون عبادستان ويحجك عمرنا بكو آذان إله سيه أذا قدر الرحمن. sidoo kale walaalayaal, waxaan ka codsanayaa dadka ilaahay maalka u dhiibay oo dayntaas leh oo qaarkood kambaniyaal ay yihiin, xoolo fara badan oo ilaahay ogyahay haysta, qaarna ay yihiin shakhsiyaad aan maaragtay xoolo ilaahaygan u dhiibay, dadka walaalahooda oo dhibaataysan waxna heli karin inay iska dhaafaan iyagoo ilaahay ka raba inuu ilaahay dhaafo adduun iyo aakhira labadaba. annaguna waa u ducaynaynaa dadkaas oo xadiiska nabiga waad garanaysaa sallallahu alayhi wasallam. nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam, ninbaa wuxuu lahaa wiilal dadku maarata ganacsi ayuu lahaa, dadku la macaamiloon jiray. markaa dayn ayuu maaragtay dadka uu ku leeyahay ayuu wiilka u daraya daynta. wuxuu oran jiray qofkii aan heli karinoo la cusleeyey iska dhaaf, lacala allaaha yatajaawaza canna. annaguna waxaan rajeeynaa ilaahay inuu noo dhaafo. markaas ninkii ilaahay waa u dhaafay subxana wa taala, ilahay dembigiisana waa dhaafay. ilahay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi annaga ayaa uga xaqnimo badan dadka maadaama u dhaafay annaguna inaan u dhaafno, marka ninkii kalena waad garanaysaan isaguna yidhi maaragtay isagu kaas xadiis kalu ahaa. adugu calaa kulli xaal dhowr xadiis baa arrimaha ka warramaya oo dadka xadiiska nabiga isaguu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala qofkii adduunyada dadka u yasira oo iska dhaafa, ilaah baa maanta qiyaama iyagana u yasirayo iska dhaafay. marka dadkaas xoolaha leh oo deynta leh waxaan u baaqaya oo ka codsanaya inay diinta dadka u dhaafaan oo maanta jimcaha uga soo ducayaan xaramkana allah u aqbala inta dhaafta. ilaahay maalkoodana ha siiyo, hana u barakeeyo, meel kalena allah ka siiyo. saasaa ilaahay u weydiinana. shirkaduhu waa inay si degdega u shiraan xoolaha faraha badan lihi, dadka khaasatan aan waxaysan oon heli karin inay iska dhaafaan, ilaahay iyagana si ugu dhaafo.
marka waxaan leenahay allah u dhaafo maalkoodana allah u barakeeyo xoolahoodana allah u barakeeyo meelay ka tabanayaan meel walbana allah ka tiirsho saasaa ilaahay u weydiinayna sidoo kale walaalayaal waxaan kaloo iyadana codsanayna dadkii halkaas ugu nimid Soomaalida ahaa aanu isweydiinay war halkaan maxabadkeena isku saaraynahay markaynu waddankeennii tagno inaan isku dilo reer hebel isu dilo ma wax meesha qabtaa dhammaantood waxaan isku afgaranay alleeyahay inay hadday waqooyi ka yimaadeen iyo hadday xamar ka yimaadeen iyo hadday Puntland ka yimaadeen hadday meelba ka yimaadeen hadday Gaarisa ka yimaadeen hadday ka yimaadeen Jigjiga waa isku raacnay dad ehelo walaalo ah oo isdhalay inaanu nahay oo ninka Soomaaliga haba asaga yiri ajahay ugu haybsan hadday is haysataan walba is soo galaysaan waxa kaaga daran saan isu jecel lahay markaan xaramka iyo meelaha isugu nimaadnay meelaha fogba xabadka isu saarayno marka inaynu walaalayaal xabadka isku saarno baa ka haboon ayaanu soo jeedinay waxaana codsanay dhammaanteed ka codsanay meelaha joogtaanba dagaalka qabiiliga ah xun inaad iska daysaan oo ilaahay u laabataan muslimiin u nahay kulligeen xaqna waxaynu isugu leenahay inaan is dhowro marka qabyaaladda allahina ka madoobeeyo xumaantana allahina ka madoobeeyo dawlad inaan helno mooyaane dhibkaan ka bixin mayno ee dawlad si loo heli lahaa ka shaqeyno ilaahna waxaan weydiisanaynaa inuu nasiyo hogaamiye wanaagsan oo maartay dulqarnayn oo kale ilaahay uu noo soo saaro ama maartay dad badan oo ilaahay u soo saaray baa jira hogaamiyaal xaq ku hogaaminaya ilaahay waxaan ka baryaynaa xaq inuu waxaan isku direynaa dad Soomaaliyeed maanta boqolkiiba 99 waa dulmi iyo gardarro baynu isku direynaa marka naar baan taa lagu galayaa ilaahay aan ka baqno ilaahay u laabano subxaanahu wa tacaala si kale loo bixi karee kitaabka alle aynu isku xukunno oo aynu isku maamulno ilaahay baana inoo soo diray muslimna waynu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka kalena waxaan ku oranaynaa waranagu muslim baan nahay wax kale ma naqaan diinta iyaduna waa taas waan ognahay wax kastoo karow la keeno inaanay diin ahayn waynu ognahay laakiin diinta ilaahay waynu ka baqaynaa waxa ilaahay amrayna waynu ku dhaqmaynaa haddii dawladda nagu xukunta aynu helno marka kitaabka alle aynu isku xukunno xaqana aynu qaadano walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa dhammaanteed inuu waddan dhaafac inaga carruurtan ilaahay noo hagaajiyo inagana inay hagaajiyo qof walba oo hadda dhageysanayo ilaahay waxaan kaaga baryayaa adiguna aamiinta noo dheh in ilaahay waxaad rabto khayr ku siiyo waxaad ka baqaysa ilaahay kaa nabadgeliyo dhammaanteed ilaahay cadaabkaana ka xoreeyo kan qabriga iyo kan naarta jannadiina ilaahay soo keeno fasubxaanaka allah bixamdika astaghfiruka cabdi majiid maxamed cali bali muslim loo yaqaano anigana ii soo duceeyay arrimahayga iyo caruurahayga iyo arrimahayga ilaahay inuu hagaajiyo adduun iyo aakhiro idinkana waxaa idin leeyahay dhammaanteen allah idin khayro inaad joogtaanba asxaabtayda adduunka aan ku wada xiriirno oo aan is aqoon si kale isu aqoon maqalkaas mooyaane dhammaantiin ilaahay dhibkaa idinka qaado culayska allah idinka qaado meela ka baqaysa allah idinka badbaadso waxaad rabtaan khayran allah idin siiyo اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته